بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كوبعية كوبريتيف وإسكاشة الصوماليات oo Soomaalida ay wada siman tahay oo ay keeneen rag khubaro ah oo Soomaali ah oo professor ah oo maaragtay yani jaamacadaha wadankana wax ka dhiga madaxna ka ah ayaa kobciye keenay fikradaas ayaga ayaa ah dadkii maaragtay hadda yani suuqa soo geliyay ee ummadda la wadaagay kobciye waa iskaashato oo Soomaali u wada idishahay isirka Soomaaliya oo dhan ay u siman inay ka qayb galaan oo cid wax ka dheer ama ka xuquuq badan aysan jirin waa nidaam aan ugu talagalnay in wadankan faqriga looga saaro haduu la yiraahdo oo khayraadka wadankeena aan la soo baxno oo aan noqono dad yani hodan ah oo khayraadka wadankoodana la soo baxa waad ogtihiin adduunka maanta waxa socda dagaal dhinaca raashinka ah oo cuntada ma aragtay la isku dagaalayo oo cid kastaba ay isku ku talagalaysa inay joojisto waxay soo saari jirto oo raashina oo wadamada qaar kood already ay bilaabeen marka anaga yaa noo maqan maadaama aan ku tiirsanahay dibadaas oo aan wax walba dibadda ka keensano bariis iyo baasto oo ah labada raashin ugu badan iyo burka iyo sokorta intaba aan awoodi karno inaan wadankeena ka soo saarno in kobciye ay banaanka soo dhigto khayraadkaas oo ummadana ay ka saarto faqriga wadankeena la dhiso dhaqaalahaas wuxuu ka imaanayaa muxuu ahaa qof walba oo xubin ka soo noqda wuxuu maalintii bixinayaa $9 kaas tabaruc ma ahan waa $9 oo capital u noqonaya qofka isaga ah oo ma aragti ku biirsanayo $9 kaasna waa raasimaal oo qofka uu soconayo weligiisna uu soconayo $9 kama istaagayo maalin walba waa $9 laakiin ma ahan hadafka ma aragti inuu maalin walba uu soo tuurayo qofku wuxuu awoodi karaa inuu bilbil u bixiyo oo $15 wuxuu awoodi karaa inuu 3 bilood isku daro wuxuu awoodi karaa inuu 6 bilood bixiyo wuxuu awoodi karaa inuu sanadka dhan hal mar u bixiyo hadii sanadka bilowgiisa la joogo laakiin asoo sanadka bartamihiisa la marayo ama sanadka qayb u dhamaaday yani ma ahan inuu 180 bixiyo waayo qayb taas ma shaqeynaysa lacagta waxa la rabaa lacagta maalintuu bixiyo wixii ka dambeeyay maalinta ku xigta inay shaqo gasho marka wixii ka horeeyay lacagtaas haduu bixiyo 180 oo sanadkiina qayb ay ka tagtay lagama ogolaanayo qofka isaga ah qof walba oo isirkiisa Soomaali ah meel walba adduunka ka joogo Soomaali Kenya ha noqdo Soomaali Itoobiya ha noqdo dhulka Soomaali ay degan tahay Great Somali wax la yiraahdo qof kasto degan iyo qof kasto oo dibadahaas kale degan Soomaali ah ayaa qayb gal kara laakiin meesha la dhisayo waa dhulkeena Soomaaliya maalgelinta ma shuruud haba yaraatay ka jirto ilaa inuu qofka markuu soo galo uu cilad sameeyo oo qalad sameeyo oo sharciga uu qabto oo laga saaro qofkaas laakiin mar asalka hore qofku waa inuu Soomaaliya qof kasta oo Soomaali inuu faqriga ka baxo sababtoo ah dhibaatada ugu weyn ee wadankeena haysata maantadan wax walba waxa uu bees ah ama sal u ah waa faqriga canuga qoriga qaaday sababtoo uu qaaday waa faqri kan siyaasadda isku dilaya oo isku hirdinaya dadkaas faqri way qofka baaragtay tuuga wax xadaya waa faqri wax kasta oo dhibaato ah wadankan haysto waa faqri laakiin qofka haduu faqrigaas ka baxo uma baahna inuu ma aragtay yani dhibaato u geysto wax shuruud ah u diidi karta malaha qofku waa inuu Soomaali yahay hadafkana waa inuu qofkaasi uu wanaag uu isu bedelaa haduu xumaa inuu xumaantaas uu ka soo laabto oo wanaag isu bedelo sababtoo ah shaqo helaya guuru helaya reer u dhisanaya wax walba oo wanaag ah ayuu qofka helaya siyaasad kama noqon karo askari kama noqon karo qof walba qof kala kama noqon qof kasta kama noqon kara haba yaraatee ya hatta institution ahaan haduu qofka oo institution ahaan ama company ahaan uu soo galayo $9 kaas uu soo galaya company weyn ahaw ama qof maskiin oo dawarsada noqo $9 ayaa lagu wada sameeyaa qofku inuu yimaado miyaa qasab nidaaman sameynay oo ah online dadku waa kala nooc dadna waxa laga yaabaa inay baraha bulshada isticmaalaan oo computer ay yaqaaniin dadna ma yaqaaniin dadka aan aqoonina badan dabcan dadka aan aqoonin waxa u sameeyna xafiisyo degmo walba oo Soomaali ay degan tahay xitaa tuulaha noqoto waxaan u sameeynaa xafiisyo xafiiskaas ayuu iska diiwaan gelinayaa meesha ka buuxinaya foomkiisa foomka information ko dhan ku qoran oo qofka loo baahan yahay iyo cid dhaxli lahayd iyo waxa soo dhan iyo lacagtu qaabka u bixin lahaa online ah qofka kalena asaga soo buuxsanaya lacagtiisana asaas soo dirsanaya qofka markay lacagtu ku soo dhaco system waxaan leenahay oo transparent ah waxaan isku xirnay bangiyada localka ah iyo systemkeena wax API la yiraahdo application program interface oo bangiyada ay leeyihiin oo nasiyeen labada system isku xiran
bangi lacagta markii meesha uu ka soo diro qofka account-ka ku dhacaysa automatically qofkiina message u helay in lacagtiisa la helay bangiga ku dhacaysa document u tahay kobciye nidaamkeeda horta nidaam ajiib ah waaye oo runtii aan weli ka dhicin Soomaaliya waa nidaam waxaan dhihi karaa oo khaariqul caada wax la yiraahdo يعني wax kasta oo xun oo wadankan jira kobciye inay baabi'iso ayaa loogu talagalay inay wax kasta oo wanaag ah ay samayso haddii aan lagu yaqiino tuugnimo waxa iyo corruption iyo musuqmaasuq kobciye waxa la rabaa inay bedesho nidaamkaas nidaam oo dhaqankii Soomaalida lagu yaqiino sodomeydii sano ee hadda hare yani ugu dambeeyay dagaalada iyo dhibaatada intii ay ummadii baratay inay meesha ka baxdo nidaamkeedu wuxuu dhisan yahay maamul waxay leedahay oo dadka ay soo doorteen dadka xubnaha ah wuxuu leeyahay structure ahaan markaan ku sharxo wuxuu leeyahay general assembly wax la yiraahdo oo ah boorka ugu yani guddiga golaha ugu sareeya oo kobciye ay leedahay golahaas dadka ku jira waa dad oo kaadiriina waa dad aqoon-yahano ah waa dad oo maaragtay diin lagu yaqaano marka qofkaasi meesha imaanaya ee ka soo mid noqonaya golaha sare waa qof laga soo doortay degmadaas waa inay xubno degan xubnahaas degmadaas degan ay مثلا baydhaba hadii aan yani qof dad laga rabo inuu ka soo baxaan xubnaha kobciye dadka xubnaha ka ah ee degmada baydhaba degan waa inay soo xushaan qofka ay soo xulnayeen dadka isoo sharxaya ama laba qof saddex qof haday isbanaanka isoo dhigaan oo kale dadkaas iyaga ah guddiga jiro CV-yadooda isoo gudbinayaan qofka waa la baaraya background-kiisa la baaraya waxa la rabaa qofka inuu ahaado qof diin leh waxa la rabaa inuu ahaado qof amaana leh waxa la rabaa inuu ahaado qof aqoon leh waxa la rabaa inuu yahay maaragtay khibrad waa inuu san siyaasi ahayn siyaasi looma ogola waa khilaafkiisa faraha badan waa inuu san ahayn qof umada soo qiyaanay maamulka waxa la diiday xubin waa caadi qof kasta la ogol yahay qof xun iyo qof fiican baa la ogol yahay laakiin maamulka looma ogolo qof xun inuu soo galo ama qof xumaan lagu bartay ama qof siyaasad faraha la galay ama war noocaas oo kale in meesha u soo galo taas loo diidayaa maamulkaas general assembly la yiraahdaa golahaas guud sanadka hal mar ay shirayaan shirkooda 3 bilood amal socon kara maximum waxay approve gareynayaan wax alla wixii mashaariic sanadkaas la qaban lahaa waxay approve gareynayaan wax alla wixii sharciye ah oo cusub waxay approve gareynayaan budgetkii kobciye lagu maamuli lahaa waxay soo dhisayaan guddiyo oo ayaga ka hooseeyo oo hawsha wada ilaa ayaga sanadka hal mar ay shirayaan guddiyadaas waxa kamid noqonaya guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka waxa kamid ah guddiga sharciyada waxa kamid ah gudiyada board of director ka leeyahay oo executive soo dhisaya waxa kamid ah gudiga maaragtay oo beelaha kale ka imaanaya waxa soo dhan hanti dhorka waxa kamid ah gudiga maaragtay monitoring evaluation ka dabagalka waxa soo dhan ay soo dhisayaan marka gudigaas ay hadana sii wadaya hawsha faa'iido horta $1 horta waxa bixinaysa $1 kaas waxa niri waa joogto waa niri everyday $1 kaas waa bixinaysa weligiisna waa soconaya ma istaagayo laakiin mucjisada uu sameeyo $1 kaas ayaa cajiib ah adiga $1 markuu jeebkaada ku jiro wax qiimaha kula bafadhiyo laakiin marka malaayiin oo walaalaha ah aad wada jamcisaan $1 ka 1 milyan oo qof markay $1 maalintii bixiyaan waa $1 bilyan oo dollar markay 3 milyan noqdaana waa 1 milyan ee baro noqona hadii 4 milyan 10 milyan 6 milyan dadka ay sii socoto kullama dadka ay bataan $1 ka malaayiin u noqonaya marka malaayintaas $1 ka ah sanadkii waa $180 marka aad 1 milyan oo kaliya ay ku noqoto sanadkii $180 milyan oo ku noqdo marka 3 milyan iyo 10 milyan ay noqdaan ka war meeqa milyan ku soo galayso oo capital ah lacagahaas waxa kale oo jira qofka nool markuu arintaas sameeyo waalidkiisii dhintay qayb waxa jirta sadaqa jaariya la yiraahdo waalidkiisii dhintay isagana $1 ka bixina oo saas oo kale maalin walba uu ka bixinayo asagana malaayiin qof oo naga dhimatay ayaa jira oo qof kasta waalidkiisa wuxuu jecel yahay inuu qabrigiisa u nuuro marka lacagahaas oo dhinaca dadka dhintay laga bixiyay iyo dadka nool oo lacagaha ay bixiyeen waxay noqonayaan waxa laga yaabaa inay gaarto billions inay gaarto oo maalgelin lagu sameeyo marka lacagtaasi joogtaan niri marka sanad kasta lacagta haday ku soo gasho capital مشاريع ودريمي كرتا مشاريع انت افولي كرت 100 مشروع لو 100 مشروع سنه بسنه كدب مشاريع way ka sii badanaysa ila capitalkaasi kordhaya adigana markasto $1 ku darto lacagtaada capitalkaaga waa sii badanaya
سنة كسوس عود سنة كمركا فائدة قاعدته سنة كوحية فائدة دبل ينقوني لأن مشاريع اللي الجلي أي كسب بدن أوكي العجة هاس مركا فائدة داس فائدة دور نوعه فائدة مد هرت حساب حر مركا لسه ما يسنة كدمات كيسة وحساب حر لسه مايو حساب حر كاس فائدة صباح له لابد من اللوكال قيبنا وحوي دتك النولا فائدة ده قيبنا دتك بنتي يصدق الجارية ده أي أسكالها مركز دتك النول لعقته 100% إذا لما يسترن أو وحبا أن لقرب بين فائدة ده أي لو ردا أكاو كيس هدور ربنا أو أكاون لهنا كاش وقاعد كرا كبعية نسينس أيضا وحبا لقربين لكن مركي أو كبعية لنا معركة صدق الجارية ده وحيلا ده صندوق ليرة صدق الجارية لعقتها بليون سينقوني صدق الجارية ده جلسوا وحالو لسه وح الله وحي دنت كده أو ودنك iskuulo oo heer sare ah oo laboratory-gooda wax walba leh iskuulo oo maaragtay leh xitaa warshadihii uniformka lagu tolay warshadihii qalimaanta iyo buwaagta lagu sameeyay ay leedahay marka jaamacada ay leedahay waxay leedahay isbitaallo ayaa laga dhisayaa oo qalabaysan oo xitaa warshadihii maaragtay daawooyinka sameeyay xitaa laga soo gado oo research center la sameeyo oo daawooyinkii wadanka laga soo saaro oo la hawlgeliyo rag dadkeena aqoon-yahanada la hawlgeliyo oo la yiraahdo daawo soo saara oo mushaaraadkooda macallimiinta iyo dhakhaatiirta iyo kulli mushaaraadkooda meesha laga bixiyo ayagoo mushaar fiican qaadanayaan waxaa laga sameynaa wax alla wixii waddo ah oo highway ha noqdo waddo yar ha noqoto lacagta sadaqa jaariya lacagta sadaqa jaariya sanka markay $1,000 ay faa'iidaan dadka 1 milyan oo kale oo marxuumiina markay $1,000 faa'iidaan waa 1 bilyan سنة كوحي 2 بليون سنة كوحي 6 بليون 4 بليون واسعونة ولقت فائدة دبل وا إلا كبعية وحا اسكالي دادكي لها أو استعمالي أو كاستمر كا أيالي مركا لعاقهاس أو مركا أنا ماشي كسو شاقني ميل كستو أبار إيكي جرت عيال لغا قودو أو أبارتان كرونيكا نقول نقوتي إلا بقول سنة أو ياشي لسو ديلي جرتي إلا إمانتان اللينيسو إن أبارتاس أن كتخلصنا بإذن الله الكريم مركا قفك وحا صوبحا هذيك أوبد كاغب وحا كو صوبحا نولول وناكسن أو رخيص وحبرش آذان هالقلن يبنينين أو elementary كبلا إلا PhD أو جار عنو جاga هالقلن لجاga ما بحنو أو free عافمات أو نوع دون هذا قلين هالنقطة داو هالنقطة هالكنين لجاga ما بحنو أو free كوتا أو ولقى يالها نول شاسة كنا ولاني سا وده في عنا كنا ولاني بإذن الله الكريم وعركون ولاني سا ما أرتي جو النظيفة مجال النظيفة حتى وحيلاده لعجهاس waxaan sameynaa guur jamaaci oo 10 kun oo qoys oo lamaana oo dhalinyaro ah in sanad walba la suguuriyo oo maaragtay ay meeshaas ka faa'iidaan oo ummadeenan aan badin oo dagaalada iyo abaartana leys u doona Soomaali Suudanes Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudanes waa badqabka bulshadeena